السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والراديو تيما ديره وكلبا إدي سو قدبية وحي عصب أدبان دين سلام يا دبان تيمبا dadkayga Soomaalida aan jecelahay waa radio Timo Dheere oo halkan idinka salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan idin hayaa dawooyin ilaahay baa dawada haya dawada waxaan ka horeysiinayaa in yaro digniina oo Soomaaliyiin walaalayaal baaritaan baan sameeyay saaka magaalada aan baxay anigoo paper toiletkayga si tasharaf dhimatay waa ogtiino inay dhamaatay bistel baan samaystay bistelki waxay igu laaheen 15 May bay imanaysaa 15 May ma suga maana suga 15 May daa sharaf dhimatay daa paper toiletkaygi baan xidhay magaaladan maray dadka aan diyaar garoobin ee aan isbambaaninayn boqolkiiba 80 waa Soomaali suuqa dadka maraya waa Soomaali meelaha ciriiriga ku jira waa Soomaali sida ogtiin saas shirkadii saas waa la xiray IKEA farotoogan weyni dadkii wixii necessary loo baahan yahay maaha mablarkii wixii markii la kaybsan wuxuu dad badan ma imanay shaqaale uu kala fasaxay meelii ciriiriga waa laga yaacay laakiin Soomaalidu waa la taa kuma baraarugsana I don't know ma garanay idinka ay sheegi doona Soomaalidu waxay ku leeyihiin qofka doodiisa xitaa paper toiletkayga waan gadayaa oo iga iibsan waayay wax kasta way ka dhamaatay intii halkan way ka dhamaatay alaabtan biilteena sharaf dhimatay waa biilteena oo ka takaroon maka yar bas baad raacaysaa kulli joogsan maysid agta leedinka gujiyay iska soo iibsada ku soo adeegta bas aad qabsanaysaa meel kasta aad qabsanaysaa waxa la soo deynay qaar soo dad meelaha marmarnay xaasidka iska badan meel walba la ismarnaya qufci hindisadii agmarkii hamaansigii salaantii wada hadalkii naqaskii hawada wax kasta lagu kala qaaday waa ilaahay inaga badbaadiyo wax xanuun si u fidaya marka waxa markaad ka saartana biyaha dhac inta waa haysan laakiin alaabtani aad bay fiican tahay laakiin ka faraha laga qabto telefoon baa idin waalay inta jaraya inta dadana farta yar farta karantiin adoo saaw taagaya guriga soo gal markaad guriga soo gashaan aad albaabka soo xirayso laasim waa inaad ku noqotaa guriga meeshii albaabkii isbadbaadintu waa wax meesha ku jirta albaabka meeshii aad ka soo furtay waa inaad dub masaxda marka farxadood meeshii masaxda taasi de booqasho ma jirto taa waa loo yahay laakiin waxa idin sheegay localku wala lagu furan yahay meeri localada hay nadaafadooda fiican ma way furan yihiin hoteeladii iyo restaurantiyada way furan yihiin restaurantadii carabta sultaan baan soo maray lix Soomaaliya fadhicid kala ma fadhido saytuun baan tagay yalbo Soomaaliya baa ku raabsanaya qofka tiraahdo walaal mad restaurantiyada waxan McDonald's waa cidla halkaas waa cidla walaal meeli waxa laga cunay bakka balan restaurantiyada kale barinkooda waa cidla diyaa wax ka cunay who come me fem qofka wax ka cuni kara laakiin Soomaalidu kuma baraarugsan anigu ma garanayo laakiin waxaan idin sheegay culimada sheekh kasta weydiiyay xanuunkan muslim iyo gaal toona ma laha anagu muslim baan nahay male muslimka waqtiyadii dawladii Cabbaasiyiintii waqtiyadii hore waxa la soo sheegay in daacuna ku dhacay xanuuna ku dhaceen halisi ku dhacay xanuuna ku dhaceen muslimka xanuunku ku dhici kara gaaladana ku dhici kara magac ma laha qolana ma laha xanuunkan isbadbaadiya meelaha ciriiriga iska daaya localada dibnada wali ku ciyaaraysaan ee markoodii hore nadaafadooda fiicnayn ka taga meelaha isugu imanaysan joojiya snella joojiya anigu way ka taro okay halkaadan inta kaga guuro waxaan idin hayaa maanta الله bahalkii daayarka madowga lagu dacaadeyn jiray dawo noqday waa dawo ina aragteen in kale mooyaan dhakhtar Mareykan ayaa sheegay kan baa ku bilaabaysan bahalkan waa lagu dacaadeeyo waa bahalkii daayarka dadka badankooda inay aaminsaneen baan marnaya
beri baan inan baan meelkooda shaqayn jirnay markaasay waxay odhan jirtay receptionka tagta markaan muus oo yovilaho muus cuntadaba ma dhadhaminay markaasaa odhan jiray nagada bahalkan geedkan waa muuska waxa jecel daayar kole lagu daceeyay laakiin maanta miiska baddu ii saarayay badda radio tima dheer halka uu saarayay waxay siinay ka sheekay geedkan markiisu waa geed dawaa laakiin dacaayad buu ahaa wala isku dacaadeyn jiray dacaayadiisa waxba nagama gelin geedkan waa cunaysaan insha Allah ta'ala oo wax weyn muuska xabad muusa ayaad cunaysaan baaritaan lagu sameeyo waxa la yiri geedkan fayrasku ma galo qofka midda kale oo idin sheegay waxa weeyaan daada yar yar dadka wixii soddon ka hooseeya ruuxa mulay Soomaali qof soddon ka hooseeya inaan jirin buu ya qof soddon ka hooseeya inaan jirin baan malanayaa ya dadku ma dhaafan 25 laakiin maanta ay dhaafeen xaafadayda aan isweydiinay su'aalo ma qasan ku 25 wixii soddon ka hooseeya ha soo adeegan oo dibadda u baxaan dabeetana waa la joojin xalay ma aanu daadi caadiga iyada soo baxay 55 ya marka waxa ii sheegaya muuskan aniga waxay ka soo martay ana wadan sharaf dhimata Yurubta kamida jooga ayaa group aan meel degan dabeetana nin dukaan haysta ayaa loo soo tuura subax kasta faan baa la inagu saliday odaygii noogu weynaa shan baa marka waan israacayna de group Soomaaliduna marka yar tahay meel degan tahay way isjeceshahay qol kastaan leen cid kastaan leen way isjeceshahay mar baan soo wada kacana suuqan wada galaan soo wareegna soo noqona dadna nin baa subax kasta soo tuura waa maalintan hormar maalintan hormar noo soo tuura muus saan cunna dabadeetana ninkii Soomaaliga ahaa noogu weynaa wuxuu nagu yiri Allahumma salli ala Muhammad sharaf dhimata ninkii Soomaaliga ahaa weynaa noogu weynaa wuxuu geedkan waxa weeyaan Soomaaliya laga helay buu siirka Soomaaliya la soo qaado adduunyada oo dhan la gaarsiiyay marka kan Talyaaniga iyo dhulkan iyo adduunyadan wada wareegaya ee waa siirkeen wallahi oo Soomaaliya masaasay adeer ahay berigii hore wallahi Soomaaliya alla dhulkan Ilaahay noo barakee maanta madadana anagu halkii mar inuu soo tuuro in buu nin naarkay Nigeria iyo nin wada socdo oo Suudaaniya keef markaas uu sikiina maagay masuki ku yiri waa qirdi walba aan ka soo yeelan khas markaas ku wadaayar waxaan cunaan geedkood markaas uu yiri baasterin baa maxaa waxaan u qaadanaysaa subax kasoo masiyo geedkan xagga soo geedkeed ma Suudaaniya iyo Nigeria ka taariikh weyntii 800 sanadood ka hor buu kan ku ka macaan wadanka ka bixi jiray ma waxa ay idinku sheekay masuul odayga soo adaga Ingiriis wala markuu wada hadlay markaas uu yiri war daayar biilay ninkan daayar maxaya sooka markii uu ko saasuun ugu oran jiray marka anagu ma naan niyada marka wax kuugu jirin ma fahmaysid qub baan ugu soo tagay ninkan waaw buu noqon jiray marka wargeedkan horta marka shaqooyinka joogtaan please iska yareeyaa laakiin now up to now radio tima dheer idin fasaxay taa ku qaata sida daayarka taa ku qaata iyagana u sheega halka ku qaada qalba xabadkan wa fayrasku ka daweeyahay baalkii saga wuxuu marayaa 1200 buu hadda marayaa inta la sheegay 7 qof baa dhintay baalkan uu siniya gaalatoona malaha in waxaan idin leeyahay geesinooda wadanka adigaaba geeyo gedafeeyay timahe iyo wiil geeyanaad salaanta gooye maanta jooga iyo taboor ma joogo qofku salaamay ma joogo taas Soomaalida wareej adiga garboyo obigi ganani adiga Soomaaliya saytuun wali wax ka cunayee
iyo meelaan lasoo baadhin oo restaurantadii fadhee miyaad ogayn inuu jiro faraskaad ma reebi dadkii magaayaba meeday raani islaantii socialka waa hoyatay meer brit mary salgirnas ku dhalatay waa ku daysi ya waa ku daysi mid kalena walal waa idiin sheegayaa xuduudihii de waddan waliba meel walba waa xidhay laakiin Sweden waxaa wala lagu ogyahay marar badan bay wax ka dhaceen waa very longism waa dad aad qofka xanuunsada waa ogtihiin xabad kiniin ama biyo cab bay ku waalaan waxa lagu leeyahay barigii daacun bari baa daacun ku dhacay waqtigii tiibda ku dhacay 1,500,000 marka dhinteen badawooyinka la soo saaro dhakhaatiirta la sameeyay baa lagu leeyahay waaba caynkaaba is ilaaliya please and please